ilahantiinba meel kaste oo aad joogtaan amaba dhammaanba ka soo qaybgalayaasha xafladan waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ogaadeen ha xarowdo, ogaadeen ha xarowdo, ogaadeen ha xarowdo. ummadda Soomaaliyeed ha israacda meel joogtaba. gumaysiga iyo dabadhilifku ha dhacaan, gumaysiga iyo dabadhilifkiisu ha dhacaan. guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul. sidoo kalena cid kaste oo ka soo horjeeda danaha shacabka Soomaaliyeed waxaan iyagana leenahay noqda kuwii ku guul dareysta isku dayadiina aad ku doonaysaan dibindaabada shacabka ama hagardaamada shacabka Soomaaliyeed. akhyaarta iyo saaxiibada xafladda nagala soo qaybgalay waxa xafladana haddii uusan ilaahay ma aha dhihin ay muddo kooban aan idinku soo gudbin doonaa barnaamij aad u xiiso badan oo isugu jira warbixino kala duwan oo xaaladda guud ee jaaliyaadka bariga Afrika ee deegaanka Soomaalida ama Ogaadeniya ka soo jeeda warbixin guud ahaanba waddanka Ogaadeniya ama deegaanka Soomaalida xaaladihii ugu dambeeyay iyo waliba dhaqdhaqaaqa doorasho ee ka socda. sidoo kale waxa iyadana aan idin soo gudbin doonaa riwaayad aad u xiiso badan iyo waliba dhaantooyin iyo suugaan halgameed kala duwan. mar kale ayaana idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaanba rabbi ha idinku nabadgeliyo. fadlan waxaa jira oo aynu wada ogsoonahay xanuunkan hadda laga wada dayrinayo ee caalamka kaga dhawaajiyay Allah inaga koriyo laakiin kastuumada afka wada xidha waayo waad maaragtay isku wada dhegantihiin markaasi maaragtay ayna isu eersanin qof walba kastuumadaada ama daaha afka soo rogo. mar kale ayaan idin leeyahay waad mahadsantihiin. xafladan ama munaasabadan oo loogu magac daray sida aad aragtaanba hilinkii qalinka iyo higsiga xornimada shacabka Soomaalida Ogaadeniya amaba shacabka deegaanka Soomaalida waxaan ku furaynaa wacdi diini ah oo kooban oo mahadiha ka gaadhay uu inoo soo jeedin doono Sheekh Cabdi Najiib. waxaan jeclahay in aad soo koobtaan si aan waqtiga uga faa'iideysano. soo dhawow Sheekh Cabdi Najiib. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فقد قال الله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة العزاء أولا إلهي نكبغنا مرهدي أمضوا أي مال سقي مادان مسلمين تبحفوا يا فرض كفاية إن يسكردان أيونا كقد عيا إلهي نيس حسوسيان إلهي بقى وحوليها يضع كفر فرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحال لكوي مؤمنين علينا برميو إلهي كعب صدى عبسدتي صدبتها حنا لمننا بالي إلا إذنك ومسلمين إن الوفادان مويل. بالحقيقة مركي الله حق تقاته وحوي وإن هذا الإلهي هوايراته وحسيان الله إيماني لحظة والبا إن أذكر هناتو تقوض إلهي عبسد إلهي سبحانه وتعالى تاسك أمريسا. ولذا بوضعها مركي آيات سورة الصحابة ويكون ولين مرجع كرتقف عن لحظة أما حالة والبا إنه معناها وتوصناه ما دعوه سيدا غالبك إن يروا إلهي هجاجي مويه سبحانه وتعالى مركع عبسدو إنك آياتنا النوتهاي آخرية أدوب إنك آياتنا فعيسى إن إلهي كعبسته سبحانه وتعالى وضمر بكل هنا العبادات كيسي هي أوامرتي وكو أمري وأذيك أمرتك أنفع عيسى آخرية أدوب امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإن أوامرت إلهي سيئة لأنه قاضنا وفرطنا نواهد نجربنا إنه كهرنا بالكلية ينبأ تاسها ضرورية إن نفرا واجب نقع. وحال الموت كأس يشربه الناس وحال الموت وحاوي وادر بيا ورن بالغ ميكاري dadkuna dhamaanta ay ka cabayaan inaad niman hayso oo ay ka dambayso maalin aan sahay inta adduunyada joogta mooyeen sidii loo yiraahdo adduunya mazra'atul aakhirah maalin inta adduunka joogto tabac aad la timid aad dheefsanayso inay ka dambayso inaad i'tiqaadiso weeye saacad walbana aad ogaato inaad dhiman hayso ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inaga qariyay xilliga ruuxu uu wafaaday dhiman hay ma garan hayno maslaxa inoogu jirto mar haday sidaa tahay waa inaad aamintaa
in ay kaa dambayso maalinta qiyaamada oo kaaga baahansahay waa inaad ogaataa inaad saacad walba iyo xaalad walba aad halis u tahay inaad dhimato oo malakul mawtku haleelo ay saacadaadi dhan tahay haddana mawtulfajaa batay waktiguna waad aragtay hebel dhimay waxaasoo dhan waa cibra inaad ku cibro qaadanood ogaato ood ku xisaabtanto oo ruuxa ku xiga ee aaska ku xiga aaskaad ka timid aaska ku xigno adiga yahay inaad aaminto weye intaa ayay inaga dhacaysaa aad baad u mahadsantihiin dadkii qabanqaabinaya waana xafladan oo soo diyaariyay maanan idinku talagelin inaan muxaadareeyo waad mahadsantihiin insha allah dalihi ogolaado heestii calanka Ogaadeenaya ayaynu ku furaynaa ee loo wada istaago بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaan u mahadcelinayaa soo qabanqaabayaashii shirka oo ay ugu horeeyaan guddida jaaliyadda xubno fara badanna ay ka caawiyeen xaaladan iyo sida inoogu qabsoontay hoolkan sharafta leh waxaa kaloo u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha mudanayaal iyo marwooyin aad baad u mahadsantihiin waqtigoo inagu yar darteed waxaan dedejinhaynaa hadalladeenna si aan u kala boganno iyadoo madax kale oo fara badanna ay joogto oo la soo jeedin doono gudaha Ogaadeenaya iyo waddanka Ethiopia la isku yiraahdaba dhammaan maaragtay wixii naga jira warbixinta aan aniga la iga sugayay waxay noqonaysaa sida tan Kenya waa dhufayska labaad ee Ogaadeenaya haddii aynu xabadda wadnay iyo hadda aynu qalinka wadnaba waxaan doonayaa in aan idin xusuusiyo 7 jaaliyadood hoos yimaada xafiiska isku duwaha bariga Afrika abaabulkoodii shaqo iyo qaran uruntooda iyo shirinkooda iyo shaqadooda iyo shirkooduba way fiican yihiin 7 goobood ay ku kala yaalaan magacyadooda waad haysaan wax badan idinku sii daahin maayo bareesharka siyaasadeed aynu wadno haddaynu nahay jaaliyadaha bariga Afrika aad iyo aad bay u fiican yihiin horumar fiican baan ka samaynay xaaladda siyaasadeed ee hadda aan ku sugannahay haddii markii hore aynu qori ku jirayna dhufayska labaad baynu hayno horumar fiican baynu ka samayn jirnay waad ogtihiin waxay mudan tahay Kenya abaalgud bay inaga mudan tahay waa meesha inaga magan gelisay waan u mahadcelinayaa dowladda Kenya iyo siyaasiyiinta inagala qayb qaadan jirtay halgankii haddana inagala qayb qaadanaysa waxaa looga baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay taageeraan qalinka iyo siyaasadda aan wax ku wadno ee doonayno Ogaadeenaya inaan ku gaarsiino aayaka taninta dadka Soomaaliyeed iyo dadka Ogaadeenaya u dhashay waxaa loo baahan yahay gacmaha inay isqabsadaan si ay u kala faa'iideystaan khibradaha sababta waddan xoreynta Ogaadeenaya khibrad dheeriya oo 37 jirsatay bay leedahay dadka Soomaaliyeed inaan uga faa'iideynaa loo baahan yahay adkaysiga iyo isku xidhnaanta iyo haddii alla maanta dhiga wada noolaanshaha si aad u jeedaan calaamada maarka xafladeena ama shirkeena kadaati waa hilka qalinka iyo hiigsiga xorriyadda waxyaalaha lagu xoroobayay ma aha
xabad keliya ay tawaan ku soo jiray in fara badan oo ku soo dadaal xabadii waxayna soo gaarsiisay inaan inagii cadaweyni isu soo fadhiisano heshiisna aan gaadhno hadda waxaan ku dhex jiraa inaan qalin ku helo xuquuqdii aynu lahayn iyo xorriyaddii aan higsanaynay oo dadkeenno aya ka tashi ay u gudbaan waxaan doonaynaa dadkeenna inaan gaadhsiino inay waxay doonaanna yeelaan waxay diidaanna ay diidaan taasna waxay imanaysaa xilliga doorashada inay dadkeennu dhiiradaan oo aan loogu habhablaynin يعني إثيوبيا وإثيوبيا iyo sidan ay tahay iyo xaaladda oo dadkeenu yani ayna niyad jab aan lagu ridin xubin kasta xubinka uu xiriirka la leeyahay waxaan ka codsanaynaa inuu ka dhaadhiciyo in maanta ayna Ethiopia ahayn inay doorasho xor iyo xalaal ka dhici doonto xor iyo xalaal hadayna ka dhicin cid inooga awood badani maba jirtaba sababtu tahay xubnaha ugu firfircoon ee ugu ilbaxsan waa xubnaha ka tirsan xisbiga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya
وتموقت إني بابا بعمل كرسي كرتو وفكينو على علم ماري كرتو أنا متعرف نبوشي وتموقت إني بابا بعمل كرسي كرتو وفكينو على علم ماري كرتو أنا متعرف نبوشي وتموقت waxaa weeye dulmigu gebigiisuba dulmigu inuu dhaco waa waajib muqadasa dulmiga in laga gudbo waa waajib qofna dulmigu lama dhalan ummado fara badan baa sidayna dulmanaan jirtay dulmigu marka in laga baxo waajib gumaysigu inuu dhacana waa qasab inuu tagana waa qasab waxaa weeye laakiin waa in laga shaqeeyo loo gudto xaalad walbo lagu sugan yahay in laga shaqeeyo sidii gumaysigu ku tegi lahaa hadday dagaal iyo dhibaatiya xabo tahay hadday nabadgeliyo cod iyo maxaan ku dhahdaaye orod iyo dhaqaalada bixiyo tahay in laga shaqeeyo iyadana waa waajib waxaa weeye waddankiiba hadda dhow ka imid oo waxaa weye markii iyagoo qolyahan hadda maamulka deegaanka ka jira uu wato iyagoo dawladdii iyo dhaqaalihii iyo baabuurtii iyo ciidamadii wax walba wata meel walba ay tagaan cid usoo bixi male gabadh yaroo calan qabta meeshay soo istaagtana waxaa isugu iman malaayiin kumanaan baa isugu iman gabadh yaroo calan qabta meeshay timaado waa haybad gobonnimadoonnimadu ciyaar ma aha qofkii ilaahay garansiiyon baa yaqaanaa waad ka sarraysaa dadka markaad gobonnimadoon tahay markaad qadiyadan u nasab sheegato ay taageero u tahay ama aad ka qayb qaadanaysa ama aad maalin shilin ku bixisay waad ka sarraysaa cid kasta sidaas daraaddeed waa inaad dareento inaad tahay qof maxaan ku dhahday mas-uul ah waxaa weeye sidaas daraaddeed in guntiga dhiisha la iskaga dhigo weeye waa doorasha hadda soo dhacaysa baa layidhi oo cod iyo qalin iyo waxbaa qorigii loo bedelay taa laftirkeeda waa in la soo tijaabiyo qof kasta waa in la soo tijaabin lahaa xaqiiqada uga yoolgaari lahaa uu ka shaqeeyo weeyaan waa in ummaddan oo ay ka baxdo dulmiga in laga shaqeeyo qofka aan ka shaqayn ma jirto maanta qofka aqoon-yahan kasta hadduu yahay qofka aan ku hubaysnayn fikir gobonnimadoonnimo waxba ummadda uma sheegayo waxaa lagu dhihi qaar baa wax bartay ilaahumu PhD wata PhD gumaysigu soo dirsaday ama gumaysiga ogol ama ku qanacsan waxaa kugu dhana geel jiro ku hubaysan fikir gobonnimadoon sidaas daraaddeed waa in loo guntado halkan gudaha dibadda meel kasta waa in laga shaqeeyo sidii sumcadda xisbigan iyo ururkan gobonnimadoonka kor loogu qaadi lahaa loo garab joogsan lahaa ogaadayaha xorowdo gumaysigu ha dhaco idinkuna guulaysta aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay Bashiir Cabdi Yuusuf waan filayaa in badan oo idin ka mid ah in aad wada garanaysaan oo raggii waxa weeye meeshan muddada dheer la soo jiifay ayuu kow ka ahaa haddana kaalintii dhaantada ayaan dib ugu noqonaynaa kooxda danab ayaan u yeedhayaa markana Dayacay, maqaala iigu baara, ku yiri, ilayaalow ha
dadku jawduurana intaasi aan kaga gudubno waxaan haatan u yeerayaa haddii uusan ilaahay ma aha dhihin warbixin kooban oo guud ahaanba ku saabsan xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida sida aynu wada ogsoonnahay deegaanka Soomaalida waxa haatan ama guud ahaanba deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ka socda wax loogu yeeray doorasho taasi oo ay ku tartamayaan kooxo kala duwan ama ahzaab haddii si kale aan u dhaho kuwaasi oo qolo waliba damac uu kaga jiro in ay maaragtayto booska iyadu ay ama sii xagsato ama ay la wareegto haddaba xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida waxaan hadda jeclahay warbixin kooban in uu inaga siiyo mudane Xuseen Geelle oo ah xubin ka tirsan golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya dadku xisbigay ugu yeedhaan laakiin anigu waxaan u aqaanaa jabhad gobonnimo doona soo dhawo mudane ayaali marweyn waan idin salaamayaa magacayga magaca jagada aan ku fadhiyo xubinka aan ka ahay jooxo ummadda reer Ogaadeniya aan u hayo iyo mas'uuliyadda aan xambaarsanahay baan idinku salaamayaa qof kasta oo meeshan fadhiya maamul iyo kalkaaliyaal iyo caawiyaal iyo waxay rabaan ha ahaadaan bulshada Soomaalida ay meeshan isugu timid ay ka kooban yihiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof kasta mas'uuliyadda uu xambaarsan yahay salaanta ha ku qaato intaan markaan ka gudbo waxaa farxad ii ah maanta in aan Nairobi ka qayb galo xafladan quruxda badan ee jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya ay soo qaban qaabisay ee sidan habsamadeena loo agaasimay marka ilaahay mahad ka gaadho mahadaas khaaska ayaan idin gaarsiinaya intaan markaan ka gudbo waxaa iigu horeysay waddanka 2018 saddex jeer afar jeer waan ku laabtay waan tegay waddan qurux badan oo taariikh leh taariikh halgameed leh shacab aad u wanaagsan wadaniyiin ayaan ku soo arkay
oona runtii anigana marka hore taariikhda aan ku hayay inay saas tahay taariikhdii maqalkii iyo muuqaalkii waan isu geystay marka waddankaas quruxdu badan uu mutaa ina malaayiin reer Ogaadeenaya ay u shahiidaan horaan ugu soo shahiideen marka fariinta meesha aan ka keenay wataas intaan markaan ka gudbo mudanayaal marwooyin waddankeenu xog badan iskuma kaana seegano oo baraha bulshada iyo telefoonada iyo xiriirka hadda waa oon inta badan laakiin waxyar waxaan rabaa inaan is-xasuusino waxa hebelo waxaad ogtahay makuu sheegaa weeye waddanku ama jabhadu astaanteeda waxay ahayd qalin iyo qorigii xabadii waan joojinay qalinka ayaa socdood moodaa inuu ka dhib badan yahay qoriga aniga waxaan aaminsanahay qalinka inuu ka dhib badan yahay qoriga maxaa yeelay cadowgaada waa mid kuu muuqdood garanayso markii qoriga lagu dagaalamaya ayuu ahaa dadkana way kala socnaayeen kan geesiga iyo kan fulayga iyo kan baqaylka intaba waa lays yaqiinay hadda waqtigan xaadirka saas uu ka duwan yahay qalinku cadowga shalay aan la dagaalamaynay baan isdhex fadhinaa oo isla joognaa oo shirarka aan iskala qayb galaynaa oo wax aan ku doodaynaa oo rabnaa xaqeena inaan qalinka ku soo dhicin marka khatarteeda ayuu leeyahay meelo badan marka laga fiiriyo khatartaas ayada oo siyaasadda waqtiga 30 iyo dhowrka sano 37 sano jabhadda ay dagaalamaysay waan ka maqnayn qalinka marka waxaad ogaataan in propaganda iyo dhibab fara badan uu cadowga maleegahayo oo qof aad taqaanidood ku kalsoon tahay hadduu rabo uu kugu soo dhiibayo marka qofka halgamaaga ee shalay naftiisu huraayay haddaan shalay baqi wayno wixii nafteena ay halis ku jirto maanta oo xabad nagu soo celin inaan baqno kuma jirto meesha waa shacabka Soomaalida ogaadeen inay ku dhiiradaan xaqooda inay leeyihiin Ethiopia waan ka adkaanay qorigii haddaan oga adkaanay qalinkiina inaan oga adkaanay inaan aaminsanahay sababtoo waan cilaynayaa macnaha caadifadiga ma aha Ethiopia maamuladeedii tani mililig way isa soo bedeleen oo maamul ka adkaanay يعني سياسة قري اسكو بدلي سيهيد حيل السلاسل درقيقي بها بدلي درقيقنا وحاب بدلي تي بي ار دي اف وحاب بدل شيء سياسة كعضون شعبي بها بدلي كعضون كان شعبي قوة نلفا سميسي هرمود واحد تدك وحيمود هيان أرمو أيام مظاهراتي وساسو مامل اسكو بدلي نو أرمو يا أنك يا أرورة معارض كدن جوحة مديسي مركزي هدنا تشيرمان واحد سياسة الورية TPRDF أو NLF أي هرمود كهاد أدون كنا سيدا سوقيها أننا كنا ونقنا مرة هذا يصير أستاي دولش حر حلالة أنا نهلنا أنكو أتكانو وحب الله ما هجوع يتاجريا شيء سوساس ما أوكي أنت أمريكا أنت جوجبو وطن كان أبارة فربنا باكجيران سيجود هان أنت الصومالي ده بأي دكتور أو قبل كنا ما كبحسن أبارة أسفرها بدنا تذكر حول دقتين أيام بقول كي بتطبعات يشن حوله خطر بيكوجران أو يحالف أنك كجرا أي درتة ويل دريين إنك استوصي هرتي لشيء حاجة قلبك كاس وحد قبل بالوضع إليه هسوك عن نصر راعيه ما كأرنتاس وسداس تنكل سياسة waxaad ka warqabtaan isdiiwaangelin inay bilaabatay waqti dheerna ay socotay jabhadda xoreynta ogaadeenayna diyaar ay u tahay inay doorashada ka qayb gasho laakiin waxaa dhacday meelaha qaarkood in laga hor istaagay wakiiladii jabhadda meelaha joogeen ilaa 18 goobood ay dhibaato ka dhacday oo loo diiday xubnihii murashaxiinta ahayeen ama xafiisyada qaarkood ba xataa in la furo marka taas ayada dacwo ka qadimtay jabhadda ayadana dacwada ay qadimtayna xogta saan ku hayno waa la soo ogolaaday marka waxaan rajaynaynaa 82 xubnood ee la diiday warqadaha aqoonsiga in la siiyay sababtay rabtaba ku timaadeen inay maaragtay joox dadkaas dib u register garayso marka sidaasna doorashada insha Allah aan ku guuleysano sida 91 aan ku guuleysanay 87 boqolkiiba حتى 9 iyo dhowr waa inaan ku guuleysano way
maamulka hadda jira haddayna cabsi ka qabin taageerayaasha iyo shacbiyadda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ay leedahay ma aynan hor istaageen intaasoo meel marka taas waxaa daliil u ah shacbiyadda iyo awoodda siyaasadeed ee ururku uu leeyahay inay macnaha intay la eg tahay iyo cabsida ay ka qabaan baa ku tusaysa midaas waa midaas tan kale siyaasad marka lagu tartamahayo dadku waa nin guuleystay in lagu guuleysto marka laakiin waxaa fiican si xor oo xalaal in wax loo guuleysto wax colaad shakhsiyadeed oo naga dhaxaysa ma jirto ururada kale la tartamayno gaar ahaan ururka hadda talada haya ee Mustafa Maxamed Cumar uu hormuudka ka yahay mucaarad yani si xor baan u tartamaynaa cadaawad nagama dhaxayso marka taageerayaasha jooxo waa inay ogaato anaga cadaawad cil aan u hayna male xaqanaga se waan dabagelaynaa in yarna kama harayno hadduu ilaahay yidhaah marka arrimaha waa sidaas guuleysanaynaa marka sidaas aan isku ognahay guul iyo gobonnimo waxaa dhacday roob culus baa dhacay waqti roobkii markii uu dhacay oo hilaac iyo onkod iyo waxbuu lahaa kanna timir buu haystaa kan soconayana waa gaajaysan ninkii timirta haystuu yii markaas waa roobkii xalay ka warransiiyo timir laba ma ahayn biyo timiri laba ma ahayn waa tii onkadoo hilaacdo halkaa martay halkaa hadda geel jira geela waana wada jirtaa waana kala jirtaa meeshii xisbiyaa dilaacay way isbaratay mid baa dhakada alla markaan aragnaa mid baa dhakada nala kaga saaraa mid baa loo wadaa hor muxuu yahay marti baarqoo geela lagu darayaa ha waxay socotaba hadda xisbiyo waxa layaha ku dhawaaqda isagoo iyadoo la shubo arkay moogta ma arki jirin ayadoo asagu shubay ma arki jirin laakiin anigu duurka intaa ku jiray oo qorigu halkaa ii sugnaa wuxuu haystaa qoriga keliya inaan aqaan haddaba waxaan u sheegayaa qoriga iyo qalinkaba inaan la aqaan qoriga iyo qalinkaba inaan la aqaan baan u sheegayaa awde yaryarkii marka waxaan rabaa oday miyiga iga yimaado dee iiga sheega meesha bartay birqod iyo kole roob baa ka daay baa la yidhi sheegoosha aan ku dhashayna meeshaad ugu aragteena sheegoosha baa ku dhashay sawe waa cabdilla dheere reerka noocaana ka dhasha sawow وعليكم السلام والمحاسن إن هذا خير بكون شيء واجه هيك مجالده يلا واقف إسلامتي نوام تانيس وين ما تانيس وحفي عم بتشيء سهل ورهده هي حدنا رجي يدور ما كان تعليه على هالجن كور رجي يدور كوي كشري الموت والله ما يدرش دور دور هو جميل يبقى وين يا جبر إلهي يمد الناس لبضي هو اسمه كيف يرديه ورياه ورطب حسيت إن هذا الشيء يبل حالي رابك هالكامري وربي حالي مري هالكامري إيه لا عي اللي يتبر لو ما هاي أكاغا وربو ور كيسي حالي جيت هوستي أيوه هلا محلو جيت كوجو هلا جيت بيوه هلا وهالكا ربو ربنا يقول أيبي حردي جيت إلا يجلدي إلا يشيغوش إلا يبلع العين مال هالكاس كحتة والله هو قرر شغل منبوط عقاري مال من حالة روب هيرين وحافظ مغاري جواب بيبضني مال من حالة روب هيرين لا بشي وايه هل هي رايح حاسك على نص وحري حيتي يريد صاح دي لو كين رجولي وهله أبارك سودو أردينا ده أنت أساتنا توب بضتين دقيس حطونا نقلين يا تشوفنا عبدالقيس كو ور سيو مقالة إيو ور اسمه ضد أنا وكجرانين ما تل وبالين مقايضة وحافظ وضيقي توريها أذيك توريها وأكن هاي إن هذا روح تو ما هتصنع واقف dhulkii miyigaas horta taas ilaahay saar nooga marido de hanoo barwaaqaysiyo haye sheekada meesha taalba waxay tahay waxa la yiri xisbiyo war hadda waa baran doonaa wayna baranaysaa haye dhageyso marka soo carrado dhan jooxa ma ahayn wali ma maqashaadi
جبهة الجوحوية تريدونكي ولماش مغلى إلى هيبة كون كردم واحد جعله سيدا أنتك إن مقع الله وضع مغلى دقيسو كيلا ما رأيت راعيني مر هذا الكايد حق لي هاد صادق رونا عبد الله دير ور ميجي بعد السيسة ور مقال عن كسيو ويا إن أديروا نمك هالكهنة ما قلت وحل يجري حسبي بفراي حسبي بفراي ما حق اسمين مركب وأروره وقت أنه هدان أن ألف أهين وقت إن أديروا إلى هيدا تجيبون تشعل إسي سيدا تدخل نوع عليا شعير كاسو وحول إصابعنا وقدر تشيل يجيل عنيس ويلكن انتنا ومجاهد شنada Allah geeyay dhageyso hay gabadhan Allah ka dabayay dhageyso kulligood bi hay annaga Allah naga dabageeyay hay wa annaga xisbiya la furanaya xisbi ma Allah la meel joognaba dad iyo dibadba meel joognaba niyo waxaan ku oo dhageyso deena darqa warhaad hay ma dhinaca hadalka ku furtay adoo Rabbi Abdullah ugu dambeysay Rabna waa daay maxaa dhacay waa jibooday ma jilba annaga dhanba jilbaysan ماشي وحلو بهاية كلا ضمبين يو أسلوب إن عندك كسيرة حتى أقوضنا ضدك كلو حليل ماشي ساوي استاجم إن هذا لو لبى إسلام هذا ما صاب حيا أنا مسوي استاجم لا وهذا كسب سؤال ربي وابن أوجلسيين ربي بنجلسيين أروك الله نوجو ذا برني وحكي يابي أبو بشير بيجو شكلته أرمي قول لو خلافية تيار في الدعوات سبحان الله وردتك هو اسكودتك لكن الجيل جيل وانا وذا جرتا وانا كلا جرتا ايادو ددكو اي اسكودد يhiin dhulkuna iskuudad yahay maxaa la wax annagu xisbi baan leenahay maxaa la sameyn marka war annagu xisbi baan leenahay annaguna gooni jifi gooni iyo reer gooni midna malaha waayahay ay waa hal garo dhan midkii jeeb ka dhiibay midkii duca akhriyay midkii saacad yar oo xilli uu ku fiirsaday saa ugu sii dhiibay كل جود بوجود اللي ينحسبه. محل سمين مركب. وحلا سمينيا. هاي. إن هذا روح اللي كارير بالغاضنيا. كارير. ها. هاي. ما الباسع اللي سكود بقول ياباني. محل سمين كارير. ما هو أركي صعبة. والله هو صوب العبانية. ما أيوة مرة يا أركي صعبة. ما قالوا ورنا بابا عمراب. كل كار محل سمين. كار وحلو سمينيا ومدك وعدك حدث أكون بيبنسي قفك عربتي يوم ما عيسى صدحان. كاغا ديبنسا waa lagu dhiibaya maanta dhan maxay ugu celcelinaysaa waa sultaan ma leeyahay sultaan baa la dooranaya war sultaanka baa ma oran kare illa lillah he war sultaanki laga soo gudub dawlad baa wax la qaybsanaya dawlad haya ma dawlad baa waxaad ka hadlaysaa qalinko halkan kanaan ku sitaa qoriguna dheegu ugu xiranaya labada dhinac illa waa ku fiirinaya illa qorigaas ugu fiirinaya hadduu qalinku socdo waa dhageyso wariya qalinka hadduu socdona waa socodsiin hadduu socon waayana qoriga afkiisaan qalin uga dhigaya haya waaya nawararsa waxay u sheegtay ku sheegaya orado dib u laabo dadkii orado keen ciyaalkii xitaa waa soo kaxay war caruurta ka daa caruurtu ma qaangaar ma ku qaangaareen ma qaangaari saddex jir baa weyn lama rabo kuwa waxa la rabo meesha waa shuruuc iyo kala dambeyn beelada waa 18 jirada iyo 20 jirada iyo 7 jirada iyo annagoo kale iyo ma gabadha ma soo kaxaya marka gabadhi cambara ahayd ma noosha weyn xageediga hordini he miyaan abaarti raacin laa ilaaha illa allah ortobta waa raaci ma he hadda nu tagayaa ana oo tago hadda nu tagayaa way dhamaad hay aw midkii waraqaa istimay arkii waraqaa istimay wareede saasa laba dadku isugu diraya hadii la iga badiyo laba waxaan ma bilaash bay caalamka maalintii ay soo baxa u soo qaataan inaan saa u marin war haddii aad waxba qorinba suulka ii taabsi haddii suulkan maqan yahay oo dee mujaahid baa tahay kan suulka farta saa u taabsi qarranta adu nacam baro nama odagii baa ka soo hormartay waa reerkii laba soo dhacdhacaya laba هذا يصير ساعة كي يقدر غير لا حد ما بهيبه magaaladii banaadaya sidoo uu yiri yaa oday isaga arigayo adduunka iyo geelaya waxana bas u kala xareen jiray talo odayga xaq goormu talo imaanaya waan ban u walwalsanahay odaygaygiye ilaahay nabad ha igu keeno waan yaabanahay odaygayo natrigay he dayuro war ma hayo inta xilligan soconaysid maxaad sheegtay horta maxaad sheegtay waa maxay gaali yaari ilmihiiba yaa ilaahayna adiga iska dhaqaaqo magaaladii qabtay hadda waa qabtay oo dee wax tagay la soo wax tagay tiig simaad malaha la yiri bal reerkii iyo ciyaalkii koror ma soo nabad galay
wareerkii ilmihii way iska wanaagsan yihiin sideedii baan u fadhi weynahay isaan kuu sugayay maxaad ka keentay magaaladii aad qabatay أورتي حالي بس أورتي مصاحرات way soo xaroodeen mid baa barqablaha iga dhibay ده تلا حميد هذا وين ساكن كل كورس تلا أقابل كوري haye maxaad soo aragtay bal iga waran magaaladii aad qabatay لقوهن haye أنا قلت ساكن مقالة دي وكان هذا waan garta وحاله كرمي أضيق توريها haye qabiyo nool yahay وي ميونولي هيا ha وجهي سنرانك كبحي واتكسب كباكل واتكسب كم haye ميونولي هذا ضفورك واحد إيجاري hee وقيل يعني عند بورديو ضفور كيس وحنا كلهم مرايضة بلادية كده أنت كسر بلادية soonigii kula taliya oo ku yiri magaalada ila gee soonigii ba alla taladeedii buu diiday talada هذا الناس كي لا يسوى أنا هيدا moodaa taladeedii كوني haye مقالة ساكو واكنتي waan garta وضيق توري يا بنوقتي haye نمك تشوف حاجة مقرن ha واجي أنا تشوفني أنا حركي وينا أنت كنا مرضى waan xasuustaa in kastoo xoogaa yara waayeeloobay jiritaanki nolosha weeye haye jaajuuskaati dhamayse jalkiisa bayse weeye sabab maqli jiri alla waa maqli jiray laakiin waxaan sameeyaa nimankii awal hore xirka jafada jooxa way laga dhihi jiray hadda magaaladii ka leeyihiin haye hadda maxaa ii haysaa xisbiyo wax la dhahaa soo arka xisbiyo oo maxay kala yihiin bal ii kala sheeg magaaladii maadaa tegay xisbi waxaa jawxa la dhaho jawxo jiritaanka ummadda la dhaho haye ayaa jira waa garta kaar aqoonsiyaa la qaadanayaa kaar aqoonsi oo laga codeeyo waar kuma maqlayo kor igu qaad kaar maxaya kaar aqoonsi baa la qaadanayaa lagu codeeyo haye berri waan baxaynaa xaggaan qabanaynaa reerka maaragta hee hadda gariir gariirayaa warba ima haysidee waxaa tiri kaar berri waan baxaynaa haye awtaas ama dhur waa halayo ama nabadaan ugu soo laaban hadda waayahe waxaa tiri berri waan baxaynaa caruurta reerka deriskaan uga tegaynaa aqoonsiga inaan berri soo qaadano yaa ku talagal haye wasraacayna haddaan adugu go-aan ku gaadhay reerkii odayda reerkiisii baa tahay anagu go-aan maana ku gaadhe juuxaa ku gaadhe inamari hayeyna kaxee aniga waxaa qaybta doorashooyinka ka socda dalka guud baad ka socotaa marka annaguna xaggee ka soconnaa mar soo isla dalka maaha marka xisbiga kaarka lagu codaynayo waa lagu siinayaa ma ii dhiibaysaa waa lagu siinaya way wanaagsan baatiye waa dadkii dhalinyaradii wax soo bartay waa lagu siin kaararka marka kaarkad qaadan rabtaa waa keygii jira mamid ka xisbigayga qaadanaya dee oona lifkan qaadanaya diyaar waaye calaamadan horta waa tii lagu dooranaya waa taa war aniga ay bariniyo waa diyaar laakiin adeer u qasab waa in lagu kala sheego saad isugu khaldin haye ii kala sheeg waay cabdillah dheero kaalebo calaamadan buugkan Soomaalidu ma jeedo meesha fiiri buugkaas uma jeedo ma ii marka calaamadan iyo buuggan weeyaan warwaatan ماشي متنا هيا لا طريقي نحقيت نصر باس او هيو reerkii saaka xagga saas leen u galay reerkii saaka adimi agu horeeyo gadaal mar odayga gadaal kama na cusubay abal saaka waxaa la yidhi aqoonsigii baa la qaadanayaa adaa wax inoo qorqori jiray anuu kale xog garan maaye bal inaga fiiri waxay ku safka gala calaamadaha xisbiga waxaad inoo rahaysaa magan bal adaa fartii waxay noogu roroona abc baataajecda waa lagu dhigaya bal jooxo inoo raadi jooxo calaamaduna waa kan meeshaad ka timid war islaanta u sheeg yay gafin meel kale ku ogow godka ku ogow way dhamaatay inaga fiiri inaga ilaali أنا كل يوم بقرا ماي نبل يفرم عروض هذا يفرم عبر وحما أخرس هذا يفرم كدر ما دلتا وانا ما ويجيك نا أذكر أبوحي أنا قد شو حنا وبوحنا يا إيوه يا صوصكم يقفيري جوحي إيرادي جوحي هذا إذا أنا قونين كارك واكن وكان علامة دنيا حسب كواتن ماشي أنا تكسي نيسا haddii aadan calaasaad qalinka loo qabta wax qori karin meeshana suulka saaraysa khadana saaraysa suulka safiican suulka oo adilka
وديان هذه حاجة سوي استاك صفقة حاجة سعد ولا بقول حاجة صعب بر أنا بقرا ماي ما سمعيا أي ربط علامة سومري بوكا سومري بوكا ما تيحا مايا علامة حسب جاية هاي ورشة كوك ليسو شوف حقيقة شوف حوات هذا العلامة دي ها كذا قوس ماشي نوكس كان بيزو قد عضن الهدوي ما حدا عضن حتى عضنت بالعمل هذا هاي وين سكوا بني ورياضي عليكم السلام أريها تعرف هوايا ايش صحيح طب أقولي أفر من وقلي واريا هاي عاين فر حيتاي ما فر هو أراد أذوق على كاتشو يحس كأي قطة كايلة ماشي مرن من مرت حد فرح إنه قلنا لسه واريا نوع على كا وارهال كنسار هل كنسار شو حمود ينعد كلام وشواب ياكل يدي تنا نوع ذي نتم على كلام نوع ذي ولا وارهال كنسار بس وكا جوح ومن كي يوح نموذ
شاء الله اللهم بعمل كاسين كرتو وقتلوها حمل بماري كرتو المكان ونكوشي وتعمل قتل اللهم بعمل كاسين كرتو وقتلوها حمل بماري كرتو المكان ونكوشي وتعمل قتل اللهم أعمل كرسي كرتو موقف كانوا هلا علم داري كرتو أنا مكانه نخوش وتعمل قدر بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقاعدين يا الله حري وقاعدين يا الله حري وقاعدين يا الله حري عدو كذا الله بربري صومالي الله مدي إذنكم الإيبانة أدب ما سنتين waxaan refrain gareynayaa oo saxayaa walaalkay jaamac galad waxaan ku hadlayaa codka dhalinyarada in yar qadar yar oo maalmo ah waxaan rabaa haddaan yaro kaftamo xagga duqeytida inay boos liisii baneeyo si aan ana dhalinyarada booskeeda ugu baneeyo in badan baan dhalinyarada soo hortaagnaa aad baad mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa dhowr kelmadood oo xasuusin ah oon khuseynin qola si gooni oo khuseynin macnaha ama aan dhalinyaro si gooni u taabanayn ama aan hooyooyin si gooni u taabanayn baan rabaa laakiin si guud dadka madashan iyo shirkan ka soo qayb galay iyo maxaa la yiraahdaa dadka daawan doonaba fariimo yar oo nu gudbinayo ugu horeyn dadkan waxay isugu yimaadeen xornimo gobol Soomaaliyeed qofku waxaa muhiim ah intuuna wax kale ama cid kale wax u raadin inuu naftiisa ka bilaabo horta bal nafteena aan xorowno marka nafteena aan xorowno aan leeyahay waxaan gumaysi ugu jirnaa taleefanka yarka aynu wadanayno gumaysi ugu jirnaa bal horta ka aan ka xorowno taladaas waxaan u soo jeedinayaa qof walba oo taleefan isticmaala ama social media isticmaala waxa weeyaan cuntada qaar waxaa jira dadku ay allergy ku yihiin dawooyinka waxaa jira qaar dadku ay allergy ku yihiin qof walba uu yaqaan waxa uu allergy ku yahay laakiin miyaa taqaanaa dhacdooyinka haddaad akhriso aad allergy ku tahay fiidiyoyada qaar haddii aad daawato aad allergy ku tahay miyaad ka taqaanaa fiidiyoyada kale marka waxaan ku talinayaa bal horta qofkii awood leh naftiisa inuu xakameeyo isaga oo akhrinayo murugo iyo tacsiyo wajigiisu uuna isbedelayn kaasoo ha isticmaalo laakiin dadka shucuurtooda aan control karin anigu koow ka ahay waxaan kula talinayaa inaan koow taleefan ka xorowno ilaahay xornimaha ina gaarsiiyay qodobka labaad waxaan kula talinayaa dadka Nairobi jooga ee jaaliyadan u nasab sheeganaya ama xubin ha ahaadaan ama taageeraha u ahaadaan waxaan idin sheegayaa inaynu inagu isku duruuf khaas ah inaga dhaxaysa agaska inaga dhaxeeyo meedkeenu wada xawaalanaa qofkii xanuunsanaya in dhiig u kala shubanaa oo inaga dhaxeeya qaaraan baa inaga dhaxeeya inaynu xafladaha isu soo camirnaa inaga dhaxaysa guur iyo meher iyo wax walba oo isaga baahdo waxaan ku talin lahaa yayna ina saameynin siyaasadda inaga dadban siyaasadda Nairobi toos bay inoogu qotantaa laakiin ta Muqdisho ta Kismaayo ta Jigjiga iyo ta Garowe inaga yara dadban yihiin kuwa inaga dadban si dadban aan oola noolaano idinkoo aada u mahadsan qodobka saddexaad waxaa weeyaan dhalinyaro si guud dhalinyarada oo waaysiyo si gaar dhalinyaro magac gooni ah loo garan og yahay waan maanta meeshan ku matalayaa dhalinyaradaas nin baa xil ka calmaday wax la yiraahdo pre campaign baa jira campaign intaan la gaarin
hortii iclaano lasii sheegto iclaankaasaan uga faa'iidaysanayaa 2 daqiiqo ee laysiiyey wiil walaalkay ah oo dhalinyartayda kamid ah oo saaxiibkay ah halkaa gadaal u fadhiya weli waan codsan lahaa inuu istaago ay dadku arkaan axmed oo istaag geeley ninkaasi wuxuu u taagan yahay isli abs mca buu u taagan yahay waa nin dalka iyo dadkaba u shaqayn doona iyo diintaba idinkuna waxaan idinka codsanayaa maalinka la gaaro registrationka votka inaad abs ka goosataan kuuradiina aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan ugu soo noqday arrin yaroon haddaa ilooba inaan idiin sheego waxaan malay ruuxa keliya wadankii baan tagay yidhi may marwada iyadoo waan tagay waxyaabaha aan ku soo arkay baan rabaa wax yar maan idinka sheego qolada hadda aynu tartanka la geli doono waxa ay qoladii hore kaga fiican yihiin waxa ay kaga xun yihiin iyo waxay kala midka yihiin baan rabaa inaan idiin sheego waa 3 qodob waxay kaga fiican yihiin ay kaga roon yihiin waxoogaa dadku waa nabadgelyo daaraha la iska seexdaa ruux walbana intuu seexduu soo toosa cidna wax lama siiyo laakiin dadku nabadgelyo haystaa oo waa iska dhaqan yahay waa degan yahay waxay kaga xun yihiin waxayna tii hore samaynin weligii maad maqasheen axmaar baa jigjiga ka taagan markii tii hore ay jirtay dhiigga faraha kula jirtay weligeed cid kale qowmiyad kale jigjiga kama istaagin xilla iyo doorasho mayna soo istaagin xaqna umayna yeelanin hadda ka hor hadda laakiin xaq bay u leedahay wayna soo bixi inay soo baxdaa dhici karta macnaha ilaahay ma soo saare anugu ma ducaynaye waxay kala mid yihiin wax la yidhaahda xaabayn oo qoladii hore ay yaqaaneen in ruuxa la xaabeeyo in miidyaha canaasiir laga samaysto in ruuxa ay taargetka saaraan boqolaal dembiilaysa la helo dad baa dembiilaynaya dadka ruuxa waa la dembiilaynayaa kumanaanna way u sacabtumaysaa xataa xilliyada qaar waxaa dhacday shaksiyaad ay rabeen inay tallaabo ka qaadaan qolyo wariyaan iyo waxba oo dhalaf ahaa oo ay rabeen inay maagaan ciwaankiisii isagu uu lahaa oo kale intay samaysteen iyo hadallo faldembiyada oo la isku xidhi kala ku qoreen kolkaasay ku xidheen waa iyagii qoray kolkaasay kuwii canaasiirtii miidyuhuna social mediada waa la soo qabtay ilaahay waa ummadda ka soo waxaad moodaa wayse sii ogaayeen halkaan marka waa kala mid waa waaga marka intaan arkay xaaladda waaga markay sameeyeen yaa waxaan dulmiyo xiqdi iyo duusi iyo daris la cayreeyo dambi lagu baraariyo xaqoo lagu dicifoobo deegaanka waa lagu ogaa daalintaa jiray ha yeeshee dabayshii ka hore daranyadii xaaqday daruuraha raxmaanka iyo nimcada dagalka saamaysay dacadtiiyo kadeedkii shacbiga dakharadii gaadhay inuu daadku qaadaan la rabay oo uu ku doogsaday inuu daadku maydhaan la rabay oo uu ku doogsaday baldayaay dariiqii xumaa baa dib loo maray jaajuus durbaan cadowtinimo duhur cad soo qaata oo miskiinka dagan xaasidnimo kula dulmeelaysta iyo koox ku dabafaysan oo miidyaha daadsan oo markuu daminka ruux la helo wada damaashaada oo markhaati been ugu daro dhaarna ugu deeqda intaasoo iswada dowlatiyo dowlad shilimaada ila lacag bay ku qaadanaya waxa ay samaynayaan waa lagu shilimaadaya intaasoo iswada dowlatiyo dowlad shilimaada waa wixii daraadina kharibeeye dib lama dhigay baldayaay wataayna dulhogan doorkan halistii wanjalaada dibindaabyada iyo duhur cajaajuuska ciwaanada la kala dooriyey iyo dabaluqooqaalka dembi aad idinku soo qorteen ruux dushawsaarka canaasiir diyaarsiga durbana dhaarku dabaqsiinta waa dariiqii lagu jabay kan hore oo dib loo maray baldayaay filin aan daawanay dib u jilaayaan markana waxaan hadduu badanka jeertiyo xubnaha beri xanuun gaadho dhakhtar cudurka baariyada waa lagu bilaabay garashadii bukootaan dariiq lagu bogsiinayn bahda habar dugaag xooli iyo bahalka duurjoogta caqligu bini aadamku waa badi ku dhaamaay hadduu meel bannaan yahayse waa baadidoo kale barqadii baraar caana dhamay dhalag la boodboodi kol haddaan bidhaan arag caqligu bada u soo dhaafin jaahil uurta buuxsay durdura way bannaan tahay markaan idiin fasiri maayo waxaan ku idhi lo-da qaawan dayladan labisan waxara laafyooda laxda harag shabeel xidhatay adhiga laynaysa laaluushka dibigaa bartay lacagta doonaya luquweyne awrkooda afuray laba jirka aqooqay libaaxa awooduu lahaa lumiye ee jiifa lamaanihii dhurwaaga ee isfuray kalana luufluufay lugta weyn maroodiga kable ee suuqa laga waayay wan xareed dadaabtiya irmaan libig cantuugaya
diiqa luuqda subaxdeeda hore laaxi ka u qaaday bal diiqoo luuqdiisii laaxiyey ka warrama diiqa luuqda subaxdeeda hore laaxi ka u qaaday waa khalad la xaadsanahayo waa luu soo korodhiyey carab bal yaa lumiyey oo saxdii laabta kaga tagay ogaadayaa xoroodo gumaysi u habdhaco